munaasabadan oo ahayd mid lagu caleemo saar ayay nabadoonka guud ee beelweynta reer Faraxsiyaad oo kamid ah beelaha deegaanada waqooyiga gobolka Galgaduud ayaa waxay ka qabsoontay hoolka Ugbaad ee degmada Cabudwaaq. munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay waxa ka soo qayb galay golaha gurtida ee deegaanada waqooyiga gobolka Galgaduud, salaadiin, ugaasiyo, nabadoono iyo waliba ururada haweenka dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Cabudwaaq. ugu horreyn waxaa munaasabadan ka hadlay qaar kamid ah salaadiintii iyo waliba qaybihii kala duwanaa ee bulshada ee ka soo qayb galay, iyagoona bogaadiyay nabadoonka cusub kulana dardaarmay inuu xilkiisa si cadaalad ah u guto. anaguna aan la qaadanay dadka halkan fadhiya oo mareexaan iyo wixii islaam oo ka soo qayb galayba, anaguna aan doonaynaa inay nala qaataan, nala boqraan, nala calayma saaraan. qof intii laga soo waday danihiisii iyo reerkiisii iyo xoolihiisii intii laga soo waday ummadda islaamka oo markaas qaryada degan cid kastaba ha lahaatee maanta beeshiisii intay keentay soo hor fadhiisatay, asaguna intay baryeen aqbalay soo fadhiistay, wuxuu leeyahay duco aad iyo aad loogu diirsado, wuxuu leeyahay sharaf dadka ka haybad weyn buu leeyahay. nabadoonka waxaan leenahay nabadoon ku soo biir dhaqankii Soomaaliyeed ama sida ku soo biir caleema saarka nabadoonka Axmed Maxamed Guuled Carab sida sifadii iyo reer Faraxsiyaad iyo reer Xuseen ay isula qaateen oo golaha u keeneen oo ay ugu yeereen beesha sade waa la qaadanay, waa soo dhawaynaynaa kii beesha iyo beelahaba anfaca in alla ka dhigana waa ugu ducaynaynaa. oo jifadiisii qabiilkiisii jifada reer Xuseen iyo reer Faraxsiyaadba doorteen oo ay soo gudbiyeen, annaguna waa la dooranay. qofka intaas u dooratay waa qof yani xil weyn la saaray, asaguna xilkiisii inuu dadaalo. nabadoonka muslim, nabadoonka sade, nabadoonka reer Xuseen, nabadoonka beesha nimanka reer Faraxsiyaad halkan aan ku soo dhaweynayno, waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan, qalbi furan, walaalnimo, ehelnimo baan ku soo dhaweynaynaa. waxaan leeyahay nabadoon ku soo dhawow xafladan, ku soo dhawow ummadaadii weeye, waa deegaankaagii. waa nabadoon Axmed Maxamed Carab. maxamed Carab baa ahaa asagaan ku aadinayo booskii aabihiis maanta ku aadanoo fadhiya dhanka iyaga waa ka soo xaqiijinay, adunkuna waa nala xaqiijiseen. aad iyo aad baan idinkuga mahad celinaynaa. insha Allah ma noqonaysa nin reer Faraxsiyaad taag fadhiista ayaa kaliya u taliya, annagoo dhan baad nabadoon noota, guurtidaan baad la fadhiisanaysaa iyo ugaasyada waddanka. soo dhawow nabadoon, nin wanaagsan baa tahay, nin sharaf leh baa tahay, aabbahaana nin sharaf loo ahaa. nabadoonku nabadoon soo jireen weeye, reer Sade iyo Soomaalidu saas ha ogaadaan. nabadoon siyaasad iyo midna loogu talagalay maaha. nabadoon markaa ku ducaynaynaa. ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay nabadoonka guud ee beelaha reer Faraxsiyaad nabadoon Axmed nabadoon Maxamed Carab, isagoona uga mahad celiyay bulshadii ka soo qayb gashay xalfadiisan caleema saarka. dhanka kalena wuxuu sheegay inuu sidii loogu talagalay uu u gudan doono waajibaadkiisa. ilaahay baa mahad u sugnaatay, ilaahay baa mahad u sugnaatay, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. idinkana waan inii mahad celinahayaa dhammaan. uwebaa ahaa, aabbaa ahaa, jaranjar bay ahayd, curadkii aabbahay baa ahaa oo hadda aniga igu wareejiyey, saasay dhaxaltooye soo taxnaan jidhay u ahayd. Shir Cismaan Maad Xiliif, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud.